السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسود والسنة سيال كميديا شريف شيخ حسن شيخ محمود oo qabtay shir jaraa'idi oo xasaasi ah kadib kulan ay isku yimaadeen shalayto. dhanka kale wararkii ugu dambeeyay xiisada Masar iyo Itoobiya ayaad ku maqli doontaan. labadaas faahfaahsan ayaa goordho maqli doontaan. magacaygu waa Maslahan si fadlan u subscribe channel-kan subscribe nasar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay. adigoo mahadsan haatan ku soo dhawaad warkii faahfaahsan. madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa shir jaraa'id oo ay shalay ku qabteen magaalada Muqdisho waxay ka hadleen arrimo dhowr ah ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka. Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay shirkaas jaraa'id ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan shirka oo shalay gudoomiyaha aqalka sare ugu baaqay inay isugu yimaadaan dhinacyada siyaasadda dalka, isla markaasna ay gudoomiyaha aqalka sare ugu mahadcelinayaan go'aankaas kuna dhiirigelinayaan inuu ka maradhaliyo. sidoo kale Sheekh Shariif ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu hadda dacad ka ahayn wadahadalada Somaliland, isla markaana uu hadda u bedelayo ololo uu doorasho ku galo, balse ay arrintaasi ka weyntahay wax ololo lagu galo. dhinaca kale madaxweynihii hore dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay kula hadlay warbaahinta madaxa xisbiga qaran ayaa sheegay in dalkan lagu wada jiray wadatashi, balse hadda xaaladdu sidii hore ka bedelan tahay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan doorashada ku tilmaamay mid la mid ah gacan calool ku jirta oo ilaa hadda aysan cidna aqoonin nuucay noqonayso doorashada dalka lagu wado inay ka bilaabato dabayaaqada sanadkan. dowladda Suudaan ayaa ku howlan sida ay wadahadalka dhex bilaabi lahayd dalalka Masar iyo Itoobiya oo uu ka dhaxeeyo muranka salka ku haya webiga Niil ee saddexdan dal dhex mara. xiisadan ayaa ka dhalatay biyo-xireenka ay Itoobiya ka siinayso webiga Niil, kaasi oo Masar ay sheegtay inuu halis ku yahay isla markaasna yaran doono biyaha dalkeeda. biyaha laga isticmaalo Masar ayaa in ka badan 90% ka yimaada Niil. Itoobiya ayaa isku dayaysa inay dhawaan bilowdo inay buuxiso biyo-xireenka, taas oo Masar ay aad uga dhigtay, balse Addis Ababa ayaa sheegtay inaysan joojin doonin. gudaantaas oo kusoo gabagabina wararkeena warkan warka xigantaa kulmi doona waxaan kaga tagay sidaas amaanallah.